maanta runtii sharaf ayay noo tahay inaan annaga iyo bangiga caalamiga IBS aan ku kala saxeexanay halkan isafgarad heshiis wada shaqayn oo runtii aad looga soo shaqeeyay aan ugu mahad celinayo labadii tiim labada dhinacba ee ka qayb qaatay heshiiskan soo diyaariyay sida sharafta leh ay u soo diyaariyeen runtii aan ku bogaadinayo aan si gooni ah uga mahad celinayo sidii IBS tiimkoodu furfurnaanta lahayd iyo hal abuurka iyo diyaar garowga ay uga qayb qaateen waxaan u malaynayaa waa jiri karaan hay'ado kale oo dawladda oo la shaqeynaya private sector-ka laakiin anagu aad baan ugu jajabana sababtoo waxaan ka shaqeynayno waa adeeg bulshada dhan loogu talagalay qof kasta oo muwaadin ah xaq u leeyahay adeegaas aad idinkuna hayseen baanu kula soo biirnay waxaanu rabnaa inaan ka wada shaqeyno sidii qof kasta u gaari lahaa sida halkan ka aragtaan waxaanu ID-gu waa xuquuq qofku u leeyahay dowladda Soomaaliyeed ayaa wakiil uga nahay in xuquuqdaas la fuliyo oo qof kasta meeshiis sida ugu fudud oo ugu raqiisan inaan ugu geeyo waxaan runtii ma raba inaan aad ugu dheeraado ujeedka heshiiska abukaataha ayaa aad u sharaxay heshiiskan waxaan rabnaa inuu gogol u xaaro in dadka isticmaalaya bangiyada ee hadda isticmaala oo agaasimuhu ka warramay uu yiri waa 1 milyan iyo 200 inay si fudud ay isku diiwaan geliyaan aqoonsi la isku halayn karo ku helaan si ay u sii isticmaalaan adeegii ay haysteen oo bangiyadu ay hore ugu hayeen oo IBS ay ugu horeyso waxaan kaloo rabnaa dadka 90% kor u dhaafay oo aan aqoonsiga u lahayn haysan oo aan awoodin oo ay ku adag tahay inay bangiyada access gareeyaan inaan si fudud ugu diyaarinay xarumo aan bangiyada ugu diyaarinayno oo xarunta bangiga hadda IBS heshiiskan aan la gelin oo gogol xaar u noqonayo inaan team diiwaan gelina xarumaha IBS aan geeyno oo ay ka heli doonaan oo iska diiwaan gelin karaan si ay ula falgalaan bangiyadii lacagtiina u dhigtaan halkaasaana u seefsan dhaqaalaha waddanka wax ka taraysa hantidooduna ay ku baraari kadhaa waxaan rajaynaynaa inay arrintaasi wax ka tarto horumarka dhaqaale ee waddanka uu higsanayo runtii dawladda waxaa ka go'an inay dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay helaan aqoonsigan waxaana nagu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo ra'iisul wasaaraha waxay hirgeliyeen sanadkii ugu horeeyayba sharcigii oo la ansixiyay 2023 bishii 3aad hay'adana waxaa la loo jigareeyay bishii 9aad ma haddana waxaan ku jirnaa inaanu adeegyadii ku xirno oo qofku adeegii inuu ku heli karo waxaan rabnaa inaan baahino oo goboladii aan tagno oo hadda waxaan insha Allah hadii ilaahay ma dhawaan aan ka furaynaa maamul goboleedyadii hadii ilaahay waxaan rabnaa marka inaan halkan fariin uga diro bulshada Soomaaliyeed inaan u sheegno inaan u soo socono diyaar u nahay adeega inta xamar hadda joogta adeega aqoonsiga ay heli karto aan xarumo badan u diyaarinay bangiyadana hadda aan ugu horeyno oo IBS ugu horeeyo oo aan maanta heshiis halka ku wada galnay waxaan rabnaa waxa soo talaabaa waxaan qaadanaa inaan u fududeyno sida ay ku heli lahaayeen adeegaas aqoonsiga ee la isku halayn karo waxaan rabaa kaloo inaan u sheego dawladda Soomaaliyeed iyadoo iska xilsaaraysa dareensan awoodda dhaqaale ee dadka Soomaaliyeed waxay u samaysay khidmad ay qof kasta uu awoodi karo ayay ku maaragtay ku soo rogtay waxaan intaas loogama harin qofka aan awoodi karin oo aan iska bixin karin khidmadaas oo ah khidmad aad u yar oo $5 waxaa dawladda Soomaaliyeed u samaysay option in laga cafin karo waxaana rabnaa hay'adaha institutionska central maaragtay bangiyada inaan ka wada shaqeyno sidii dadkaas aan awoodi karin ee raba inay bangiyada access gareeyaan ay isu diiwaan gelin lahaayeen adeegana si free ah ay ugu heli lahaayeen insha Allah hadii ilaahay waxaan rajaynaynaa kuwa qurbaha ina ka tagay oo duruuftu ay geysay oo wadamadaas raba inay waddanka ku soo laabtaan inaan meelahooda ugu geyno safaaradaheena inoo ka furan inaan ka hirgelino
annagoo kaashanana wasaaradda arrimaha dibadda waan uga mahadcelinaynaa agaasimuhu iyo inay tiimka wasaaradda arrimaha dibadda inay nagala soo qayb galeen maanta xafladdan saxiixa heshiiska laba geesoodka waxaan rabnaa dhammaanteen waa ka wada dheregsanah caqabadda aqoonsi la'aantu ayna ku haysan waxay hoos u dhigtay la macaamilkii bulshada iyo businesska la macaamilkii dowladda iyo dadka oo qofku hadduu dowladda hay'ad dowladeed adeeg uga baahdo wuxuu u baahan yahay inuu qof sii kaxaysto qof uu garanayo qof mas-uula qof xildhibaana waxaan rabnaa inaan caddayno adeegan aqoonsiga wuxuu horseedi doonaa inuu qofku ka maarmo inuu qof wakiil ka noqdo taa inuu ID-giisu inuu noqon doono waxa uu isku damiinan karo adeeg uu ku heli karo ama mid dowladaha ama mid aan dowli ahayn waxaan kaloo rabnaa inaan caddayno sida laga sheekeeyeyba adeegan aqoonsiga wuxuu caqabad ku ahaa ama caqabadaha ugu waaweyn waddanka regulations waa laga sameeyey laakiin caqabad wuxuu ku ahaa inaan la macaamilno bangiyada caalamiga ah waa la socotaan bangiyadeennu hadda lacag adduunka uma diri karaan lacagna looma soo diri karo waynu ka go'annahay adduunka jasiirad gooni u go'an baana laakiin waxaa keliya oo la isku haystana waxa weeye qofka lacagtan soo diraya oo Soomaaliya ka soo diraya ama qofka loo soo dirayo oo Soomaaliya jooga ma la yaqaanaa ma la caddayn karaa reference ma laga hayaa taas ayay arrintaani xal u noqonaysaa insha Allah haddii lahayno qof kasta oo Soomaaliyana wuxuu helayaa number u gooniya oo lifetime oo weligiis uu la dhimanayo adeeguu doonana uu ku access garayn karo haddii ilaahay waxaan rajaynayaa oo aan rabaa inaan bulshada ugu baaqo inay isdiiwaan geliyaan inta adeegu xarumaha aan uga furnay gobolka magaalada Muqdisho hadda 4 xarumood oo rasmi ayaa jira tiimam guurguura ayaa jira waxaan rabnaa inaan xoog saarno bangiyada si dadka bangiyada haysta ay dhammaantood loo wada hubin karo oo adeegana ay si hufan oo nadiif ah u heli karaan aan uga gudubno qiimeynta hadda ina ku soo socoto mutual evaluation-ka laga sheekeeyay aan ugu baasno haddaan qiimeynta ku dhacno waxa weeyaan awal horena waxaanu ku sii jirnay meel dhibic madow ayna saarneyd dhibic kale oo madow ayna sii fuulas laakiin si aynu ugu wada baasno waa inaan gacmaha isqabsanaa ka wada shaqeynaa wax kasta oo hirgelin kara ama aynu ku wada guulaysan karana waa inaan ka shaqeynaa runtii waxaan rajaynayaa inay qayb ka qaato kobaca dhaqaalaha sababtoo haddeer waxaan umanayaa limitations ayayna haysta lacagta laynoo soo diri karo haddii laakiin arrintan ay layna ka qaado dhibicda dadku si xora bay lacagta inoo soo diri karaan 5 bilyan baa laga hadlayaa inaan si fudud 10 bilyan aan ku gaarno muddo yar oo kooban lacagta si xora maalintan doono inaan lacag adduunka u dirsan karno innagana laynoo soo diri karo ayay inoo sahlaysaa marka qof kasta la aqoonsado qof kastana uu noqdo qofka uu sharciyan uu yahay haddii ilaahay waxaan rabnaa inaan ugu baaqo mas-uuliyiinta kale maaragtay wada shaqayntu naga dhaxayso insha Allah haddii ilaahayno inaan iyagana aan diyaar u nahay saas oo kale inaan heshiisyadan la galno dhammaan bangiyadu waxa weeyaan waa fursaddan waa u wada fidinay waxaan ka wada shaqaynaynaa central bankiga iyo midowga bangiyada ayaan ka wada shaqaynaynaa waa uga mahadcelinaynaa IBS inuu noqdo bangiga ugu horeeyay fursaddan aan wada heshiiskan wada galno insha Allah haddii ilaahayno kuwa kalena waxaan rajaynaynaa inay ku xigaan haddii ilaahayno waxaa kaloo jiri doona waxyaalo kale oo fara badan oo aanu ka wada shaqayn doono oo aanan halka ku faahfaahin laakiin insha Allah haddii ilaahayno aan xafladeeda iyo gobasheeda haddana aan uga wada hadli doono oo aan ka wada shaqayn doono oo dhammaantood ku taxalluqa maaragtay siyaadinta adeeg dheeraada oo dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin iyo kobcinta dhaqaalaha oo ay maaragtay dhinaca tiknoolajiyadda iyo horumarkeeda aan iska kaashanayno dhammaanteed waxaan rajaynayaa insha Allah haddii ilaahayno ilaahay idinkiis inuu sidaas aynu maanta heshiiska u galnay inuu ilaahayna ku guuleeyo fulintiisa iyo dhamaystirkiisa insha Allah haddii ilaahayno dhammaantiina waa idinka mahadcelinayaa waqtiga iyo sabirka aad noo sabirteen waqtigan maaragtay dambe aan ku soo gaarnay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu